kooxda kubadda cagta Komsed ee ka dhisan magaalada Gaalkacyo ayaa bilowday tababar diyaar garow waxaana ay kooxdu ay casuumaad ka heshay xiriirka kubadda cagta Jubbaland. Kooxda Komsed oo kamid ah kooxaha ugu weyn Puntland isla markaana hore ciyaaro saaxiibtinimo ugu safartay meelo kamid ah Puntland iyo caasimadda wadanka Soomaaliya ee Muqdisho ayaa iminka waxay isu diyaarinaysaa safar ay ku gaarto Kismaayo. Garoonka weyn Cawaali Stadium oo aan ku booqday kooxda kubadda cagta Komsed ayaa xilliga aan booqanay waxay ku guda jireen tababar isugu jira jimicsi iyo ciyaarista kubadda. Tababaraha kooxda Komsed Ilyas Cabdinuur ayaa ii suurta gashay inaan weydiiyo warbixin kooban oo ku aadan tababarka ay biloobeen. Bismillahir Rahmanir Rahiim. Halkan waxaan maanta aan nooga bilowday tababarkii naadiga kubadda cagta ee Komsed. Naadiga kubadda cagta Komsed waa naadiga ugu weyn ee Puntland iyo Soomaaliya markaan wuxuu dhisan yahay 15 sano. naadiga kubadda cagta ma aha markii ugu horeysay oo safar uu aado oo ka baxsan Puntland iyo goboladeeda. haddeerna safarkeena ujeedada alminkan tababarka oo socday waa safar nagu soo waajilay oo aan martiqaad ka helnay Jubbaland kaasoo aan ka qayb gali doono tartan ciyaar saaxiibtinimo ah oo inagu aan ciyaaryahanada aan halkaasi kula hadlay waxa kamid ah Ibrahim Khalar oo ka warbixiyay tababarka uu bilaawday kooxda Komsed. tababarku maanta noo bilaabmay insha Allah wuxuu noo soconayaa waxaan si weyn mataqaanaa aan aad ugu faraxsanahay inaan mataqaanaa adaan naadiga Komsed aan martiqaad ka helnay xiriirka Jubbaland runtii aad bay u mahadsan yihiin sida wanaagsan ay noo casumeen mataqaanaa aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaan kaloo mataqaanaa aan u mahadcelinaynaa dhammaan mataqaanaa dadkii mataqaanaa dhinaca maaliyadda mataqaanaa transportiga naga caawinaya aad bay u mahadsan yihiin waayo adduunka wax walba waxa way iska qabsi weeye waxaan kaloo mahadcelinayaa dhammaan mataqaanaa taageerayaasha naadiga dhammaantood oo mahadcelinaya sida wanaagsan ay mataqaanaa waqti walba hooy garab iyo nolol hortaagan yihiin. gudoomiyaha kooxda Komsed Cabdiqani Khaliif Axmed ayaan ka xog wareystay cidda maalgelinaysa safarkan dhawaan ay ugu anbixi rabaan caasimadda Jubbaland ee Kismaayo. waxaan mahadcelinayaa rag badan oo ka qayb qaadanaya caasimadda ama safarkan ku tagay Jubbaland waxay kamid yihiin gudoomiyaha sportiga America Ahmed Nuur Ciise baki oo isagana Canada naga caawinayo jaaliyada Sweden oo na caawinayso oo kamid yahay Saciid Ankolay Nawadoon Farxaan Asad Cabdi Qurux dhinmaago kale waxaan u mahadcelinayaa Insaaji iyo Cabdi Shukri oo ah laba nin oo mas'uuliyiin ah oo jaaliyada Denmark kamid ah Atlanta oo kale gudoomiyaha Jubbaland ana Ahmed Daahir ku nool magaalada Atlanta asagana qayb ay ka qaadanaya safarkan waan u mahadcelinaynaa UK kale dumarka ama rag aad la tigada u mahadcelinaynaa. milkiilaha kooxda kubadda cagta Komsed Dr. Cabduqaadir Maxamuud Jaamac Dhagacad ayaan ugu dambeyntii ku booqday cusbitaalka GMC si aan wax badan uga ogaado safarka Kismaayo oo ay kooxda Komsed dhawaan u safri doonta. wayna ku weyn tahay oo rajo weyn bay qabaan oo yaani himadoodu ama moralkoodu waa kacsan yahay si halkaas u tagaan nimankaas wala soo ciyaaraan oo la soo joogaan waqti 15 bariya marka waxaan ka doonaynaa wala kasto oo meel kasto ay joogaanba in aanu sidaanu yeelay hadda aan go'day Brazil Denmark shaqof inay naga qaabisho Sweden naga qaabilaan sidoo kale shan UK naga qaabilaan shan yani saasoo kale Canada يعني باكي يا الله الله وحي لهذين اوكي نو صدر متقارنا من عيالك ابا بس marka waxaan doonaynaa nin kasto arkaya message kan ya waxa kamid ah USA message kan dadkii arkaya inay si degdega noogu soo jawaabaan. Yusuf Maxamed Ahmed, Telefishinka Star, magaalada Gaalkacyo.